السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود الكسر دواده ورئيس جارة وأن لي لانينه متكمدة حرف اللياشة كشقية نقشدينته يتريد دركة مقالة مقدشة إسلام كان معلن صوصارة حرف الليال بدن مركو ركسر دوا أستاذ استوديوها M24. أنا مع سنة هاي أستاذ وكله هاي aadna ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamij noocan oo kale inaan markaysa M24 maanta markaysa qof waczumananahay soo dhaweynteeda markaysa waa midaan la qiyaasi karin marka hore ani iyo daawadayaashuba magacaagu saddexan magacaygu saddexan waxaan filayaa dad badan inay aad i yaqaanaan Cabdullaahi Xaaj Cabduqaadir Maxamed oo ku magac dheer Cabdullaahi Jazeera dad badan waxay yaqaaniin Cabdullaahi Jazeera oo ay markaysa isku qabteen magacayga iyo xarunteeda magaceed Jazeera oo meesheeda iyo magacayga isku dareen Cabdullaahi Jazeera aad leeyahay yaqaana inta aan barnaamijka su'aalaha badan aan u guda galin marka hore taariikh nololeedkaada waa mahadsan tahay su'aasha qiimaha badan ay weydiisay aniga waxaan ku dhashay xaafadda waa beri magacayga isaan idinku sheego Cabdullaahi Xaaj Cabduqaadir Maxamed waxbarashadeedii markaysa quraanka waxaan ku dhigtay xaafadda waa beri oo aad loo yaqaano waxbarashada maadiga iskuulka waxaan ka bilaabay iskuul Cabdullaahi Ciise oo aad loo yaqaano oo saddex ahaa iskuulkii waan ka baxay oo saddex aan ugu baxay dugsiga sare waxaan ka dhigtay isla markaysa Al-Xigma oo ahaa dugsiga sare qaybtiisa sare markaysa Al-Xigma Cabdullaahi Ciise wuxuu ahaa saddex dugsigiisa sarena wuxuu ahaa Al-Xigma ka baxay macallimiinta aad u salaamaya waxaan aad ugu faraxsanahay tiimka Al-Xigma nin kamid ah markaysa maanta ra'iisul wasaare inuu noo yahay Xamza aad u salaamaya tiim badan oo la shaqeeyo waxbarashadeedii markay dugsi sare aan dhameeyay waan ka tagay wadanka anoo markaas markaysa daneynayay waxbarasho inaan korsado way suurtagal weysay waxaan tagay Itoobiya oo ka sii tagay way ahaan weysay Itoobiya markaan waxaan u tagay ka waayay Kenya tagay oo xirfadan ka soo bartay alxamdulillah maanta markaysa aad baan ugu faraxsanahay in bulshada teeda ugu hooseysay iyo teeda ugu sareysay inaan u soo shaqeeyay oo laba qayb kaga soo shaqeeyay markaysa qaybta xarqaanka dharka dumarka oo ku soo kordhiyay markii ugu horeysay Muqdisho in qofka naqshad alaala naqshadu keensado inuu heli karo daahana naqshadu uu doorbido uu meesha roo inta ka keensado ama sawirku roo keensado inaan gurigiisa ugu qurxin karo arrintaasaan ma arkaysaa backgroundkayga waa intaas shaqadeeda iyo waxbarashadeeda waayahay xirfadda aad carabka ku dhafatay isla markaana aad ka soo baratay dalka Kenya Muqdisho aad kula soo laabatay si fiican goorma bilowday barashada waxaan bilaabay 2000 kahor waan baran jiray oo xamar xoogan ku baran jiray nin baa caawin jiray waxaan ka bartay xoogaa yaraan la shaqeeyay muddo kooban xamar ku shaqeeyay oo laakiin xirfadeed aad u hooseysay dhanka xarqaanka laakiin 2017 meelahaas bay ahayd markii ma arkaysaa xirfadeedii ay ma arkaysaa aan guda galay waxbarashadeedii ilaa maantana ma arkaysaa aan wado shaqadii iyo xirfadii waxaad carab ku dhafatay asaasiga waxbarashada ilaa iyo heerka dugsiga sare markaad ka baxday inaad aaday dalka Itoobiya waxbarasho u aaday kadib Kenya aaday maxaa kugu leeyahay adigoo waxbarasho u baxay inaad xirfadan u wareegsatay waxa igu dhaliyay ugu weyneed waxay ahayd anoo jeclaay inaan dibadaha wax ka barto fursadii waxbarashaan ka heli waayay markastana waan jeclaay inaan aqoonta maadiga yaqaano tan diiniga yaqaano inaan xirfad yeesho waayo xirfadda markasto waxay ka jaanis badan tahay aqoonta caadiga ama academic waayahay markaad Muqdisho ku soo laabatay xagee ka bilowday shaqadaas waa mahadsan tahay markaan Muqdisho ku soo laabtay waxaan ka bilaabay agagaarka inta u dhaxaysa sayidka iyo dabka meeshaas oo markaysaa dadka ay socodkooda xataa ku yaraa dad badan igula taliyeen inaan meeshaas ka doorbido meel ka fiican sida Bakaara iyo Xamarweyne laakiin xirfadeyda anagu kalsoonaa iyo gacanteeda
iyo ilaahigii ma arkaysaa arsaaqda bixiyo anoo ma arkay aad ugu kalsoonaa meeshaan tago in aan waxaan ku helayo wax ilaahay ii qoray aan aad u darbado marka horena qorsheyga wuxuu ahaa daahyadan aad u garanayay inaan ma arkaysaa wadanka aan wax ugu taro xafiisyada dowladda inaan aad ma arkaysaa qurxintooda qayb kaga noqdo tiina niyadeedu ilaahay ii yeelay way ii suurta gashay xafiisyo badan oo dowladda ayaa ilaahay ii saamaxay inaan ma arkaysaa daahyadii ku xiro oo xafiiska madaxweynaha guriga madaxweynaha iyo ugu horeeyaan guryaha ma arkaysaa madaxda ugu sareysa sida ra'iisul wasaare badan ayaa waqtiga ii saamaxay inaan guryahoodii ku xiro xafiisyadooda ku xiro wasaarada ku xiro waxaan maanta meesha aan rabaa inaan ugu xuso maadaama qayb warbaahin joogo sidaas oo kale waxaan aad ugu farxaa ugu faanaa wasaaradda warfaafinta ina ma arkaysaa qalabeynteeda qurxinteeda aan labadaba ka qayb qaatay oo ma arkaysaa ay ka mid tahay wasaaradihii aan ma arkaysaa aan qurxinteeda daahyada qaybta daahyada aan ma arkaysaa ka qayb qaatay waxaa xusid mudan ma arkaysaa daahyada markii madaxweyneen hadda dalka haya xasan sheekh iyo Erdogan ay ma arkaysaa wadanka ku kulmayeen in hoolkii ay ku shirayeen in qalabeyntiisa qurxintiisa aan ka qayb qaatay qaybta daahyada waata ustaad waxaad carabka ku dhufatay inaad tahay xirfadle ka shaqeysta arqaanka soo saara dahmanka quruxda badan lagu sharxo xafiisyada isla markaana waxaad nooga dartay inaad tahay qofka naqshadeyn yaqaana hab maamuuska mas'uuliyiinta sida wasaaradaha oo kale maxaa kaloo xirfad kale oo aad leedahay xirfadaha oo khaaska ah oo leeyahay markii laga soo tago qaybtan xirfadda xarqaanka waxaan leeyahay laba xirfad oo aad u jeclahay oo ah markii laga soo tago xataa design-ka xarqaanka la socotaa naqshadeynta laga soo tago waxaan leeyahay xirfadda waxbarista oo anoo yar xataa iskuuliga jiray iskuulka private-ka aan ka dhiganayo muddo dhigayay oo jeclahay inaan markaas wax baro haddana aan ahay macallin bara xarqaanka dad badan aan barayn hadda ay ku shaqaysanayaan arintaas waxay ii tahay farxad gooni ah waayo hami muddo dheer ay ahayd inaan markasta waxaan xambaarsanahay inaan gudbiyo sidaas oo kale dhanka wacyigelinta ayaan ma arkaysaa aad ugu fiicanahay oo yaraantii ku soo baxay dhalinyarta si la isugu awaawulo oo loo wacyigeliyo oo la soo xiro oo loo kasbado arrinkaas ma arkaysaa hibo ilaahay ii sii ahayd xirfada labadaas xirfadna waa leeyahay oo qaybta waxbarista iyo qaybta wacyigelinta waayahay waxaad noo sheegtay inaad ka mid tahay bare macallin ah dadka wax baraysid maxaa bartaa dadka aan wax baraayo waxaa base ah markaan dadka wax baraayo markasto qof value leh inuu noqdo waxa ugu horeeyo oo dhanka orientation badan qofka inaan siiyo qofka markuu value yeesho qof wuxuu noqonayaa qof karti leh qof dabeecad leh qof akhlaaq leh qof macaamil dadka la leh markaasaan xirfadda baraa waxaan baraa xirfadda xarqaankaan baraa muddo si teel oo koobanaan u bari jiray oo xarinteyda shaqadan ku bari jiray dadka waayo waxaan jeclaa inta maanta la imaanay ma ogay waarimaysa war ha ka haro waxa ilaahay ii baray bulshadeeda inaan ugu shaqeeyo barana waxaan aad ugu faraxsanahay dhowr meel maanta oo si gooni u taagan in team aan wax soo baray inay isku shaqaysanayaan waxa kamid ah oo markaysa fursadda in ay saamaxda rabo in hilmaamsho hadal kuma jiray on ilooway wiil dhalinyaro ah oo hooyadiis aan garanayn baa ii timid maalin waxay ugu tiri wiilkaan raba in wax ay barto wiilka waa soo dhaweeyay asoo arday ah oo lacagta ay ku adag tahay iskuulka wiilkii maanta wuxuu marayaa 4 sano intuu iskuulka ugu dhiman meesha ku dhameystay maantana 2 sano jaamacad dhigtay jaamacadda wax yar ugu dhiman tahay xilli wuxuu soo maray wax baranayay cilmiga maadiga ah meeshiidana wax ka baranayay maanta laakiin asagoo wax baranayna wuxuu ka mid yahay isla meeshii ka shaqeeya nin shaqeysto oo noloshiisa iyo tan waalidkiisa iyo gurigiisa waxba ka qaato barnaamijkaas aad ugu talagalay jiray maantana waxaa ii suurtagalay ilaa 250 arday inaan markaysa xarqaanka aan markaysa baristeedii aan ku guda jiro in badan oo intaas ka badan ay noo diyaarsan yihiin rufatay inaad dad badan soo saartay waxa ay tolaan dharka markaan u soo laabano ma dhar raga
mise waa dhar dumar? majority dadka aan soo saaray adoo aada u mahadsan waxay u badan yihiin dharka dumarka, iyadoona ka marnayn daahiyada. labadaasaan aniga basically professional ku ahay oo meel fiican aan ka gaaray, mana ka marno in dharka ragga xoogaa aan ka garanayo, laakiin aysan gaarsiisnayn labadan markaysa labadan meelood markaysa xirfada dharka dumarka iyo xarqaanka meesha ka gaarsiisanahay walow aysan gaarsiisnayn, laakiin waxay iga bilaaban yihiin. ustaad waxaan ognahay bini aadamku markii wax la barayo mise la soo saarayo waxaa laga kulmaa caqabado badan. inta aad xirfadda aad baraysa bulshada aadna sheegtay in dad adi aad bartay maanta goobo badan ayagu u madax banaan ay ku jiraan, caqabadaha aad kala kulantay maxaa ka mid ah? wallaahi bilaahi aad baa u mahadsan tahay. su-aal muhiim ah aad i weydiisay oo aada u muhiim ah oo aan jeclaysanahay in lay weydiiyo su-aal noocaas ah. anoo kaga faa'iidaysanaya fursaddan waxaan leeyahay aad bay u adag tahay markay dhankaas la aado. dad badan oon baray dadka ugu yar baa iga tegay anagoo isku niidsannahay, anoo wax kasta diyaar la ah oo misana jecel inaan garab kala qaato xitaa hadday jecel yihiin in horumarkooda qayb qaato. laakiin waxaa dhacaysa mararka qaar inaad dadka aad wax baraysay ay maaragtay caqabad kaaga timaado, caqabad ah qofkii wax bartay si fiican muusan kaaga tegin oo qofkii noqdo qof ma arkaysaa adoo raba inaad opportunity u sameyso wuxuu rabaa asna inuu adig kaa xoroobinin, waxa uu egyahayba gumaysi ku jiro oo kale. mararka qaar markaa bari siday dhibaato tahay oo mararka qaar qofku wax buu qaldayaa, mararka qaar adoo isdhahay toosi oo xirfadiisa ha wanaagsanaatay, akhlaaqdiisa laga yaabaa si xushmad leh inaad u cayanaanato, hadallo kulul kaaga yimaado. mararka qaar ninaan meel fiican gaarsiinin ood meel soo gaarsiisay ood rabto inaad u dhamaystirtidoo laga yaabo haddana asagii kaa tagaba soon kuu sheegin xitaa. waxa ugu daran waxay tahay aan rabaa inaan kaga faa'iidaysto dadkeennii hore Soomaaliyeed oo wanaagsanaa waxay ahaayeen dad aad u ixtiraamo macalinka, kan xirfadda kan dugsiga haba ugu badnaatay iyo kan maadiga, saddexdoodii isku mid ay u ahaan jireen. marka inaan diinteenii iyo dhaqankeennii hore usoo noqono, nabiga calayhi salaam wuxuu leeyahay kaada almucallimu an yakuuna rasuula. marka mucallimka wuxuu sigay inuu rasuul noqdo, risaalo ku wado oo kale. sidaas oo kale cumar wuxuu leeyahay ninka ani hal xarfa i baro waxaan dhihi lahay macallin. marka macallimiinta in aad loo ixtiraamo way xanuunjinaysaa qof ma arkaysa wax ku baraya in waxyaabaha qaar uu dulqaadi karin inuu kala kulmaa. marka dadkeenii hore oo kale inaan dhaqankoodii iyo qiyamkoodii yeelano na aadaan u rajeynaya insha allah. waxaad ka mid tahay macalinka ama baraha soo saara xirfadleyda, waxaana ka mid tahay madaxda ama maamulka G-King oo soo saaraya dad fara badan. kulankii ugu dambeeyay aad qabateen waxaad ku soo saarteen 250 qofood. dadkaasi maxaa barteen? waa mahadsan tahay. dadkaas waxaan barnay basiska xarqaanka. xarqaanka wuxuu leeyahay darajaad uu leeyahay, qofkii yaqaano oo meel fiican ka gaaraa fahmi karo. sida cilmiga academic oo kale ayuu wuxuu leeyahay stages. stageska aan barnay, stageska oo xarqaanka leeyahay waxaa kamid ah qofka baseka inuu barto xarqaanka sida loo isticmaalo, sida loo controlo, sida dunta loo duubto, sida markaysaa waa kaay wax fudud loo tolo. wuxuu leeyahay qayb uu qofka ka gudbaayo oo waxyaabo qaar toli karo, qayb wax uu jaran karo, qayb wax design garay karo. marka intaasba waan ma arkaysaa waxay noogu jirtaa waxyaabaha dadka barayno intaas iskula jiraan. waxaa noogu jirto in dharka sida loo feereeyo, sida loo package gareeyo, intaas dhan waa isku baraynaa qofka. hadda qayb kamid ah aan soo barnay. ardayda intaas waa ka badan yihiin oo ma arkaysaa Cabdiqani anoo meeshaan fursad kaga faa'iidaysana aad baan u salaamayaa Cabdiqani Xasan Cali Xanabooro oo barnaamijkaas ma arkaysaa muddo badan aan ku hamin jiray inaan capacity intaan wax bara ka badan inaan gaarsiiyo. ani asagana taas uu ku haminayay. waxaan noqonay rag isku kaashto oo ma arkaysaa hamigiisa mid ahay. darteedaan ma arkaysaa hadda tilaabo fiican qaadnay. intaasna waa ka badan yihiin dadka aan rabnay inaan wax barno. hadda waxaa noo diiwaan galsan 1
iyo 150 arday 250 kan dufcada koowaad aan ka dhignay markaan soo saarno waxaan aan ku rajo weynahay inaan ma arkaysaa shaqo abuur u sameeyno kullama aan ardaydaas 250 ka ameeleno inaan ma arkaysaa haddana 250 kale ama 500 hadba capacity-geena iyo tabarteen intee la eg tahay oo laakiin ham weyn leenahay in ayagana dadkana garab noo noqdaan oo waliba dadka wax barayno ayaga wax soo saar yeeshaan waxay soo saarno annagii ayaga wada jirno dadka naga dambeeyay inay inta ugu badan ku noqoto wax ku sii barno waxaan soo gaarnay gabagabadii ustaad waxaa jirto inaad dad badan soo saarteen dadkaasi aad wax baraysaan ma shaqo abuur ayaad u sameynaysaan mise xirfadda inaad bartaan ayaad suuq ku daynaysaan waa mahadsantahay soo dhawow qorsheyn waa ballaaran yahay 3 qorshe oo bees isugu jira marka ugu horeyso inaan bulshada maanta waxay u baahan tahay jihayn oo dhanka shaqada waxa ugu badan oo maanta bulshadena la dhibaatoonayso oo la daalaadhaceyso waa shaqo la'aanta shaqo la'aan baahsan baa wadanka ka jirta taasi waxay kaliftay bulshadeeni dadkii laf dhabarka u ahaay oo dhalinyarta ugu badan tahay inay wada xun wax ku raadiyaan tusaale inay baxaan oo wadanka ka cararaan asoo wadankeeni qaninimadiisa maanta qof walba ka dhirigsan yahay oo adig ugu horeysay waxyaabaha aan haysano wax laga sheekeyn kara ma dhul beereed badan gobolo badan leh bad maanta aad u weyn oo xeebta maanta Afrika ugu dheer baan haysana ama labaad la leeyahay hadii hawo wanaagsan business markaysa wadanku waxa soo dhan ku haysana waxay doorbidaan dhalinteen inay wadanka ka cararaan oo dhul shisheeye doorbidaan Soomaalina waxay ku maamahdaa dhalaal lahayn dhaxan kaama celiyo dhulaada lahayn waa arkaysa waa daran waxyaabahaas oo dhan oo maqleena dhagaha ka fureysteen dhalinta wadanka inay wadanka la ka doon dadkaas dad wax qabsaday waa dad wax qabsadayna adig kuma qabanin dalkaaga wax ku tahay dadka inaan fikradaas ka dhaadhicino marka ugu horeyso shaqo abuur inaan u sameeyno dhalinyarada si aysan bulshada caqabad ugu noqonin hadda waxa dhacda xataa dadka tagaya markii laga soo tago oo qurbaha iyo saxaraha ku dhamaaday iyo badaha dadkeeni maanta ay keenay isdhameeyaan soo noqon dhalinyarta inay ay ka isdilaan kii markaan joogan aad ugu xumaan jiro marka qaar xataa risk u galay dad lagu haysto dhalinyaro Soomaaliyeed wadada waas inaan kala dhaxgal kala maslax marka qaar aan jeebkeygii wax kaga furo si aan ku kala badbaadiyo hadda tiya wadanka ku soo noqotay oo markaysa dhalinyaro badan maanta in markay meel ay aadaan waayeen inay inta dadka habeenkii baartaan dadka dhibaateeyaan maalin kasta gabar la dilay qof la saan lagu sameeyay xanuun badan ay igu sameynaysaa taasi marka waxaan ugu talagalnay inaan dadka ugu badan meesha ka soo baxo shaqo abuur ugu sameeyno wixii kalena dad waxa jiro oo maamooyin ah oo aanan garab kala haysanino ama odaygii ugu dhintay ama odaygii ka maqan oday kala tageen ilmo korinayso marka ma isku keeni karta inay ilmana koriso oo magaaladii bariis ugu raayis ilmihiina guri ku hayso marka Janice waxaan ugu talagalnay gurigeedii inay wax ku qabsan karto bulshadeena waxaan leenahay wadan wanaagsan baa haysanaa 3 shay oo aad u dhib badan baa nagu dhacay suluuk la dhaho suluuk cudurka suluuga wax ka xun ma jiro 3 shay baan suluugnay oo ummad muslim iyo gaalba aysan suluugin qofka diintiisa ma suluugo dalkiisa ma suluugo dhaqankiisa ma suluugo dhaqankiisa waxa imaanaya luqadiisa qofka luqadiisa inuu ilaashto waxay qayb ka tahay asoo dhaqankiisa ilaashanaya marka 3 suluug horta inaan ka dawoonaan rajeynaya waxa ugu dawoobi karnana waxay tahay wadan too much suitable ku ahaan haysanaa shaqada ilaahayna wuxuu inaga dhigay Cabdirasaaqow dad hal abuurka ku fiican shaqada ku fiican firfircooni maskaxeed iyo mid jireed leh oo laga dareemay adduunka meel walba aan tagnay Kenya markaan joogay dadka Kenyaanka iyo Hindida waa ila yaabi jireen dad badan aniga waxaan jeclahay bulshada inaan markaas dhex galo Soomaalida qaar waxay ka ordi jireen dhanka luqadda ani taas Janice weyn waxa ii siiyay iskuulka basic English ka anoo ka sayay iyo dadkii markaan dhex galay waxaan ka dareemay macnaha da'deeda iyo waxaan sameynaa dahba jiro oo gadaashaada oo display ahaan u sameeysanay aysan xilaa display-gan waa yaraa markaas da'deeda xataa inta ka yar display-gan waxaan adima toshay leeyin may ninka noo tole noo wac waa before 13 years ago waqti aan ka sheekeynaa
xilligaas wixii marka kan aad ma tolin waxaan maraa marka meesha waxaan u sheegay waxay tahay hal abuurka iyo maskaxda brightka ilaahay nu siiyey in kaga faa'iideysano dhalinyarteena marka waxaan ula talinayaa in anoo dhalinyarta kaliya la talinaynin oo sidaas oo kale la talinaayo dadka wax haysto waxaan leeyahay bulshadeeni maanta hala jihey haddii kale waxaa dhacayso nin guri dhala ku jiro nin buush ku jiro maka nabadgalaayo ilaa waa la tuuriyeenayaa ma tahay mas maaha marka intaysan taas dhicin hadda way jirtaa oo ma habeenkii taleefanadaada iPhone-ka iyo lama soco karo niclahaaga banaanka la soo baxay haddii kale waa laga farsameysana marka taas u dhicin bulshada in la jiheysiiba dhalinyarta ugu horeyso shaqo abuur loo sameeyo nin walba jeebkiisu furo berina ilaahay baa markaysa markii danta guud la gaaro ayaa danta gaar timaada marka aan dhalinyarta u soo noqdo taasi waa dadka wax haysta iyo dadka wax uun sameyn kara inay wax uun isku dayaan aniga Cabdiqani hadda laba barnaamij baa noo kala furan anigana maanta xarqaanka dumarka aad u tixgeliyaano dhar dumar hadii loo dal iyo dibad ruushka ugu dambeeyo waxaan xasuustaa saxafiyadood aad u taqaanaan nasarkiin xaashi nuure oo dhanka ciyaaraha aad ugu haboon sidaas oo kale iga soo mahad celinaysa ruushka aan xasuustaa oo Facebook sidaas oo kale Sucaad Samaara oo ay joogto dalalkan Afrika mid kamid oo dhayso wala dharkaagi dad Afrikaana ay weydiinay iyo Farxiyo Maxamed Khayre shir saxaafadeed oo Djibouti ka qayb gashay waxay tir dhar hidaha iyo dhaqanka aan u tole waxa xasuustaa waxay ugu tiri dharkan Soomaaliya lagu talo iga aamin wayn waa dadkii laga soo gaaray hidaha iyo dhaqanka dadka la yaaban waa Kenya iyo Tanzania oo wadamada ku horeeya marka in bulshadeen wax gashano dhalinyartana waxaan leeyahay lama huraan waa cooska jiilaal wadambeyn inta soo wareegno inta soo noqon doona dadka maanta Yurubaaday iyo America dalka nabad noqdo oo maal gashtaan orday marka intaanan laga buuxinin adi maanta wax sameeyso dad wax sameeyay intaan ordi lahayn waata ustaad waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka su'aasha ugu dambeysay naqshadaha laga soo dalbaday diyaar muuta inaad soo bandhigtid si muuqaal ah oo aan ku baahino warbaahinta isla markaana dadku ay arkaan wax soo saarkaaga waan soo dhaweynayaa barnaamijkaas waa barnaamij aad u fiican M24 waxaan dareemayaa inaad jeceshiin horumarka bulshada dhiirigelinna markasta u noqotaan bulshada taas waa idinkaga mahad celinaya arrinkaas aad u soo dhaweynayaa diyaar baan u ahay hab dhinac kasto xarunteeda soo booqan kartaan idinku soo dhaweynayaa wax soo saarka iyo shaqada ka socota iyo dhalinyarta iyo inaad aragtaan alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay in dhowr iyo 10 qofood maanta ila bariiseynayso bandhigyo yar baan sameeyaa bandhigyadaas waxaan rabaa inaan xoojiyo kullama aan xoojiyo opportunity ka soo baxayo waxaan rabaa in bulshada ku noqoto daawada halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku wareysanaynay al-ustaad Cabdilaahi Xaaji Cabdiqaadir oo noo falanqeynay waxyaabihii u qabsamay intuu ahaa baraha haddana uu ku tala jiro inuu soo saaro bulsho gacanteeda ku shaqaysata tan iyo kulantan boo xiiso leh sida iyo nabadgelyo amaana Allah